ciidamada booliska ee dowladda federaalk ee Soomaaliya ayaa degmada Daarusalaam ee gobolka Banaadir ka soo qabtay koox la sheegay in ay fowdo ay ka wadeen degmadaasi. kooxdan ayaa maalintii shalay waxa mudaharaad rabshado wata waxa ay ka dhigeen albaabka hore laga galo degmada Daarusalaam ee gobolka Banaadir, waxaana halkaasi ay ku burburiyeen baalaha ama tabeelaha u dhigsanaa Daarusalaam, isla markaana lagu garan jiray in xaafadii Daarusalaam la galayo. dadkan ayaa si weyn shalay waxay uga cabanayeen in magaca degmada Daarusalaam loogu yeero kadib markii gudoomiyaha gobolka Banaadir iyo madaxweynaha dowladda federaalk ay u aqoonsadeen degmo rasmi ah Daarusalaam, waxaana dadkani ay sheegeen in halkaasi aan loogu yeeri karin Daarusalaam oo loogu yeeri karo oo kali ah Ratweyne. dadkan ayaa waxa halkaasi ay ku gubeen hanti kala duwan, waxaana ciidamada booliska ee dowladda federaalk ee Soomaaliya caawa ay soo bandhigeen sawirada dad ay sheegeen in ay ahaayeen dadkii halkaasi rabshadaha ka dhigay oo ay gacanta ku soo dhigeen. waxa boolisku ay sheegeen in xabsiga loo taxaabay isla markaana la geey doono maxkamadda oo la soo taagi doono. magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya ayaa dadka ku nool waxa looga digay in gebi ahaanba ay ka fogaadaan wax kasta oo dhibaato keeni kara bulshada dhexdeedana kala qoqob iyo dhibaato ku abuuri kara. ciidamada ayaa horay waxa xabsiga ay u dhigeen dhalinyaro baraha bulshada gaar ahaan TikTok isku fowdeynayay, kuwaasi oo qaab qabyaaladaysan arrimaha TikTok uga hadlayay bulshada Soomaaliyeedna si weyn ay u dhibsanayeen. ciidamada dowladda federaalk ee Soomaaliya ayaa waxa muuqanaysa maalmihii la soo dhaafay inay wadaan howlgallo kala duwan oo ay ku xaqiijinayaan in sumcadda iyo wadajirka ummadda Soomaaliyeed la ilaaliyo. sidaa daraaddeedna dadka ka shaqeynaya